بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سيدان كبلا صنين كتبتي سلسلة يعني توحيدك وحان كتابك اللبات قلين دونا مركان ودميني خذ عقيدتك كتابك اللي هذا الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة كتاب كان أو قري أو دياري إمامك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وحؤادوا إفنيا مسائل كالولاء والبراء وحؤادوا إفنيا أنواع العبادة وحؤادوا إفنيا نواقض الإسلام وحياة إسلام لماذا برينيا يشروط لا إله إلا الله قف كستا أو فهم حقيقة أو دونية إسلامكي أو دليل رسمي من الكتاب والسنة لقصة تخليصي دوني سفي عن بو وحفهم وقادن كرا دد سو اخرستay baa jira laakiin culimo murji'a u akhrisay shirkiga waa la sheegaa mushrikiinta looma sheego waaqica lama taabsiyo laakiin anagu runtaan u sheegaynaa faman shaa falyu'min waman shaa falyunkir kitaabkan insha Allah ta'ala dad badan buu ka fujin doonaa waxyaabo rawaasib al-jaahiliya ku dhagan hara waxyaabo ku haray oo ikhlaaskiisii iyo ubudiyadiisii wax u dhimayo maadaama uu ka shakisan yahay mujtamac mushrikiina jaahiliya ayuu ku hufayaa ilaahay idankii mukhlis baad noqonaysaa biidni illaahi tacaala dadka dacaydooda iyo soo dhoweyntoodana midna muhiim maaha haddii waddadii ilaahay raalliga ka ahaa alla kugu toosiyo oo nebiga alla la soo diray sala allahu calayhi wasalama alwaajibaat waxyaabaha waajibka ah almutaxatimaat lagu khasban yahay yani khasabka ah waay xatman ah qofka uu khasab ku ah المعرفة إنه قرنيه على كل مسلم ومسلمة إنه يقانو ووحو إسلام كو أهان لهاوي نين كستو أو مسلمة يهوين كستو أو مسلمة ده واجبات كسارن أو خاصة بيتاي إنه يقانو هدوسا أو قول مسلم أصلا كنا قنين أيان كتاب كان كبرنا بإذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الأصول الثلاثة صدح الأصل التي يجب أي واجبتها على كل مسلم ومسلمة qof kastoo muslima rag iyo dumarba tacalumuhaa inuu barto asalada saddexda ah oo looga baahan yahay qof kastoo muslima inuu barto wahiya waxaa weeye asaladaas macrifatu alcabd rabbahu macrifatu alcabdi addoonku inuu macrifo u yeesho rabbahu rabbigiis xaqa uu ku leeyahay ilaahay inuu garto u yaqaano kow wa diinuhu iyo diintiisa diinta ilaahay nabigiisa u soo dhiibay oo qofkan diinta u ah waa inaad taqaanaa diintaadu maxay ku amraysaa waa asal iyo wa nabiyuhu nabigiisa qofka uu nabiga uu raacsan yahay sala allahu calayh wasalam muxameda xaqa uu nagu leeyahay raacitaankiisa la iska rabaa saddex asal weeye saddex ilaah ma aha sida ay qabuuriyiintu nagu caayaan kitaab usuulu thalaatha la yidhahdo waxay yidhahdeen saddex ilaah ayay sida nasaarada caabudaan bal beentaas fiiri adiga nasaaradu waa saddex ay caabudaan waa allah iyo nabi ciise hooyadii waana saddex ilaah ayaga xaggooda ay ka rumaysan yihiin oo caabudaan kufaartu allana uu yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha thaalithu thalaatha annaguna hal ilaah baanu caabudnaa rabbulcaalamiin oon adinku idinkugu yeeraynaa mushrikiinay inaad keligii caabudaan oo awliyada iska daysaan kow diinta dee ilaah ma aha waana asal nebiguna ilaah ma aha waana asal marka waa saddexda asal ee qofka muslimka la rabo inuu garto baa la yidhi ee inuu caabudo lama dhihin saddexdaba lama caabudayo ilaah keliya la caabudaya marka warka mushrikiintu waa been iyo been abuur ay rabaan dadka juhalada ah bay ku siraan si aan shirkigooda waxba looga sheegin iyo kufrigooda suufiya iyo shiico fain qiila laka haddii lagu yidhaahdo fain qiila laka haddii lagu dhaho man rabbuk yaa kuu rabbi ah فقل waxaad tidhaahdaa rabbi allahu rabbigay waa allah alladii rabbaanii kii i barbaariyey i quudiyey i koriyey wa rabba jamiica alcaalamiina quudiya oo barbaariya dhammaan caalamka oo dhan binicmatihi nicmadiisa ku barbaariya oo ku quudiya halkaas mushrikiintii annagu iska raacsanna intaas iyagu waxay ogol yihiin rabbigood inuu alle yahay caalamkao dhanna quudiyo barbaariyo oo koriyo habeen iyo maalin isagoo kala bedelo laakiin tan waa meeshaan ku kala duwannahay wa huwa macbuudii isagaa ah kaan caabudaya allah wahuwa alle macbuudii waa kaan caabudo laysa lii
malihi oo ima sugnaanin macbuudun midaan caabudo oon baryo oon magan galo oon u gowraco oon u sujuudo oon u yeerto oon gargaar weydiiso oon shareecadiisa iyo sharcigiisa ku dhaqmo siwaahu isaga mooye malihi laysa lii ima sugnaanin macbuudun mid la caabudo siwaahu isaga ka soo haray isaga cidaan ahayn oon caabudo mabalihi wa laa ilaaha ila allah macnaheedu wa huwa macbuudii laysa lii macbuudun siwaah waidaa qiila laka haddii lagu yihahdo lagu weydiiyo maa diinuka maxaa kuu diin ah diin waa maxay waa dhaqanka tacbudiyada shayga aad dhaqan ahaan ugu dhaqanto adoo ku cibaadaysanaya faqul diiniya alislaam waxaad tidhahdaa diintaydu waa islaam wa huwa islaamkuna waa alistislaamu lilaahi bitowxiid alistislaam in la isu dhiibo loo hogaansamo lilaahi ilaahay bitowxiidi towxiid loogu hogaansamo maxaa laga wadaa ma cidaan towxiid haysan ba alla u hogaansami karta shareecaduu sheegan karaa inuu ku hogaansamay oo wuxuu dhihi karaa kitaabku ilaah baan ku dhaqmay isagoon towxiid haysan waa mushrik waa dhacda iiraan shareecan ku maamulnaa bay tidhahdaa dowla imaamiya la ohan jiray dowladda shiicadeeda ka dhisnaan jirtay yemen ilaahay kheyrkiiba baryayaan dowladda kale ee ka dhisnaan jirtay safawiya la ohan jiray iiraan waa dowladdii weyneyd ee safawiyiinta la ohan jiray ee weeraray xataa dhul badan qabsaday oo sunada sunnaha xasuuqi jiray shareecan ku maamulayna bay dhihi jireen hadda khumeyni muxuu yidhi dowlad islaamiya dhalin u dhah dowlad islaam iiraan baa loo yaqaan hadda ee dhahaan waxay yidhahdaan xukuuma islaamiya iiraan fi iiraan oo thawra islaamiya maamulaysa dowladdii kii baa laga qabsaday boqorkii shaah waxaa qabsaday aayatullah khumeyni ninkii la baxay shareecan soo rognay buu leey ilaahayna u sharig yeelaan marka alla waa u hogaansanay dheen waa xaggii sharciga ama xaggii caqiidada ibliis bay u hogaansanayeen mushrikiin way ka dhacda dhulka soomaalida suufiye yiri kitaab baan ku maamulanaa caldheeran in la yihahdo suufiya ayaa xaafadda kaaraan 1992 maxkamad ka furay maxkamaddaas amniga waa sugtay waa lagu kala badbaaday tugada gacmaha ay ka jarayeen yacni zunaadda waa karbaasheen dadka zaaniyiinta la yaqaana hore aan soo guursan ee zinada lagu qabto markhaatiga loo helo ama qiraal la yimaada waa karbaashi jireen amniga waa sugayeen tugada waa la xisaabtamayeen laakiin in muxiidiin celin la caabudo oo kaaraan lagu caabudo iyo sanca iyo weliyow cadde in la caabudo caadi u arkayeen maxaa yeele suufi baa maamulaya caldheero suufi baa maamulaya isagii baa shirki ku jira shareeca islaamna waa ku maamulaya buu leeyahy marka taas maaha tan islaamka ilaahay alistislaamu lilaahi ilaahay oo loo hogaansama bitowxiidi adoo towxiid ku sugan adoon cid kaleoo la baryi karaa aanay jirin alla mooye rumaysan inkiraya shirkiga walinqiyaadu lahu ilaahay loogu hogaansama bitaaca in la ateeco awaamirtiisa taxliil iyo taxriim wixii ilaahay uu xalaaleeyey xalaal laga dhigto wixii alla uu xarimay xaaraam laga dhigto nebigu meeshu mara yiri la maro calayhi salaatu wasalaam tashriic baa la yidhaahdaa axkaamuljanaayaad baa soo gelaya axkaamta marka qofku dambaabo lagu ciqaabayo hadduu zinaysto iyo hadduu waxado iyo hadduu maarata axkaam hadduu khamri cabo iyo hadduu wax dilo iyo kulli hadduu jidgooyo sameeye iyo waxaasoo dhan waxaa laga qaadanayaa ilaahay amarkiisa waa taaco ilaahay uu leeyahay haddaad cid kala siisa micnaheedu taacadii cid kalaad siisay waana jirtaa taasna oo maxaan usoo qaadan karnaa daliil in taacada cid kaloo la siiyo ilaahay keliyana la caabudo qabri in la caabudo aan la ogoleen waa jadiidiya dhaqankeeda hadda ictisaam dawaaqiidda waa ogol yihiin weliba jadiidiyada waxay tirahdaan waa weliyul amr way ku dagaalamaan oo in laga hor yimaado ma ogola shareecada ilahay in lagu dhaqmo muhiima ma arkaan haddana suufiyada iyo qabuuriyiinta iyo dadkan shiicada way inkirayaan waxay leeyihin ilahay bay u sharig yeelaan baatil bay ku sugan yihiin daacadii ilaahay lahaa ninka ka tegey ee ama siisiga masar jooga ha ahaado ama ibnu salmaanka sacuudiga jooga ama kama imaaraadka joogo yuhuudnimadiisa cadaystay weliyul amri buu u yahay waa adeecayaan dhankii marka caqiidada maxay dhaheen yani tacabudiyada ilaahay cid ahayn lama baryi karo looma yeeran karo ma maqli karaanba waa shirkulcubudiya bay ku dhihin khatar daacadiina makhluuq bay siiyeen suufigana muxuu sameeyey shareecuu ku dhaqmay axkaamtii buu la yimid caqiidadiina ilaahay buu ugu sharig yeelay oo qabri buu caabuday labaduba baatil
haddaad ogolaato cid kale inay daaco kugu leedahay weliyul amri kuu taha amarkaaga iyagu hogaaminayaan ilaahay kitaabkiisa inay ka tageenna aad og tahay dee shariig wey. am lahum shurakaau sharacuu lahu min addiini maa lam yaadan bihi illaahu baad soo gelaysaa. marka islaamnimadu waa taas, daacadiina allah iska leh, caqiidadii tawxiidkaana alle keliya lagu caabudaya, laisu duleynaya, loo khuduucaya, la magan gelaya, laa hayr, laa ilaaha ila allah. intaa markaa la timaado arrin saddexaad baa jirta marka culimo fara badan ka maqan oo daacada aan u ogoleyn daaquudka, oo qabriga iyo geed in la caabudo aan ogoleyn, iyo tadallul cid kale in loo sameyo aan ogoleyn. laakiin maxaa ka maqan? masaladana ka maqan iyagana. walbaraa'atu min ashirki wa ahlihi, walbaraa'atu min ashirki waa gaareen, weliba intaa waa sameeyeen. shirki beri bay ka yihiin, ma maqli karaan. wa ahlihi, laakiin ahlu shirkigiibuu wataa. kii qabriga caabudayey ama xeer ku dhaqmayey ama dasaatiirta ku dhaqmayey ee tolkiisa ahaa wuu wataa, ama waalidiinta ama qaraabadiisa muslimiin buu u yaqaanaa, hadday dhintaanna waa u ducaynaya. shirki hadduu maqlana waa xanaaqaya. laakiin mushrik ma ogola. soomaaliyada dhulka soomaalida ma joogo kudhi mushriga la sheegaya aawe, oo kan qabriga caabudaya muxuu yahay? waa nin soomaaliyeed shahaadanaya, yucdir, waa loo cudur daaraya kan. marka quraysh looma cudur daarayo, xataa qaraabadii nabiga looma cudur daarayo sala allahu caleyh wasalam. adiga qaraabadaada mushrikiinta qabuuraha caabuday xeer ku dhaqman oo loo cudur daaraya miya? beentaas fiir adiga. markuu meelu kaa mara wayuu leeyahy culimmadii waxay tihi daliil bay ka dhigteen ay ku gabadaan. culimo waxay tihi daliil ma noqoto, qaala allahu qaala rasuulullahi baa daliil ah. culimmadu ama waa asiibi kartaa ama waa khaldami kartaa. culimo oo dhanna dee ma dhihin ba shirki cudurdaar buu leeyahy, ee kuwa irjaaga difaaca dhaha iyo taaquudka kuwa u adeega. marka waxaa la iska raba walbaraa'atu min ashirki, shirki in laga bari noqdo, wa ahlihi iyo ahlu shirkigii. intaasoo la isku dara islaam la yihahda. alistislaamu lilahi bitawxiid, walinqiyaadu lahu biaacati, walbaraa'atu min ashirki. maxaa ku xiga? wa ahlihi ay ahli shirki. haddaadan ahli shirki beri ka ahayn micnaheedu muslim ma tihid. haddaadan shirki beri ka ahayn muslim ma tihid. haddaadan alle keliya adeecin daacadaada ilaahay aadan ku gaar yeelin shareecadiisa iyo xukunkiisa adoo nabiga ka qaadanaya muslim ma tihid. haddaadan alle keliya baryin oon keligii magan gelin, keligii u gowricin, keligii isu dullayn, macbuudka xaqaa keligiis aadan u aqoonsan muslim ma tihid. halkaa marka miisaan la saaro maxaa kuu soo baxaya? in yar baa dadka muslimiin noqonaya. wa qaliilu min cibaadiya ashakuur, ilaahay baa yidhi fa abaa akharu nnaasi ilaa kufuura. dadka badankiisa xaqa waa diideen gaalnimo mooye. marka xataa nebigiisu alla wuxuu ku yidhi wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimuminiin. dadka badankiisu aad dadaashay muminiin ma noqonayaan. wamaa yuminu akharuhum billah ilaa wahum mushrikuun. nebiguna wuxuuba sheegay bada alislaamu gariiban wasayacuudu gariiban kamaa bada'a fatuuba lilghurabaa. xadiidka aad u fiiri saxiix muslim buu ku yaala. islaamku gariib lala yaabo ku bilowda, sidii buuna ku noqonaya. wax lala yaabuu noqonayaa maanta qofka yidhaha tawxiidkan ka run sheegaya, mushrikiintana beri baan ka noqonaya, qaraabadeeda ha ahaadaan, go-doon buu gelaya. fatuuba lilghurabaa buu nabigu sii raacay calayhi salaatu wasalaam. waxaa janno iskale kuwa ghurabada ah. marka baraa'atu min ashirki wa ahlihi wa shart lilislaam. waidaa qiila laka haddii lagu yidhahda man nabiyuka yaa kuu nebi ah, faqul waxaad tirahdaa moxamed ibni cabdillaahi ibnu cabdilmualib ibnu haashim. abtirsiga nebiga inaad barataa shardi ma ahan. inuu nebi maxamed nebi kuu yahay, xaqa uu kugu leeyahay calayhi salaatu wasalaam na waa lagaa rabaa. waan u tegi doonaa xaqa nebigo 5 arrimood ah. nebigu marka abtirsigiisa haashim buu ku abtirsan. haashimna waa quraysh, qurayshna waa min alcarab. carabtuna waa min duriyati ismaaciil ibni ibraahim alkhaliil calayhima wacalaa nabiyina afdal asalaatu wasalaam. carabtu ismaaciil bay ka soo jeedaa, ismaaciilna waa ina ibraahim. carab oo dhan marka ma aha. carabta cadnaaniyada loo yaqaan nebigu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam. ama carab kalaa jirto la yidhaha qaxtaaniya oo aan ku abtirsanin nebi ibraahim. aws baa ka mida, khasraj baa ka mida, khusaaca ka mida, qabaa'iladii yemen baa kasoo qaxtaaniyado dhan baa ka mida. banu cadiy baa ka mida, banu tayida, banu cadiy oo quraysh ah. marka dadkaasoo dhan waxaa la yidhahdaa carab qaxtaaniya iyo carab cadnaaniya oo nebigu kasoo jeeda calayhi salaatu wasalaam, iyo carab waxaa la yihahdaa carab hore baabaado dhammaatay sida caad iyo thamuud iyo tusum iyo dad hore baabaayo wey. marka calayhima wacalaa nabiyina afdal salaatu watasliim. labadooda nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil iyo nebigeenaba nabadgelyo naxariis korkooda allah yeelo. halkan marka waa qeybtii koowaada kitaabkan aan rabo bilowga hore inaanu isla fiirino. nebi maxamed marka calayhi salaatu wasalaam waa nebigii alla
ugu dambeysiyey ambiyada oo caalamka u soo diro salawaatullaahi wasalaamu calayhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin baa la yidhi kumaana dirin ilaa adduunka o dhan adoo u ah raxmad mooye meel kale alla nabigiisa wuxuu ku yidhi yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballagta risaalatahu wallahu yacsimuka min annaas nebi allow rasuulow gaarsii dadka wixii lagula soo diray haddaadan sidaa yeelin ma aadan gudan risaaladii alla kuu soo dhiibay nebigaas marka waa moxamed calayhi salaatu wasalaam oo usoo rafaaday usoo dhibtooday 23 sano dacwadan marna dacwo waday afka ah marna dacwo waday ah dagaal miidaan ah oo loo yaqaano yacni kifaax addaami halgankii nebiga ee dhiigu ku daatay calayhi salaatu wasalaam aakhirkiina dadkii xaqa uu gaarsiiyey allana uu oofsaday markuu xaqii dadka gaarsiiyey salawaatullaahi wasalaamu calayhi nebigaas xaqa ah waa nebigii adduunyada u dambeeyey hore waxaa ka horeeyey ambiyo ka horeysay oo ciisa muusa zakariya yaxya ay ka mid yihiin nebi daauud nebi sulaymaan laakiin dhammaantood waxay ahaayeen bani israa'iil ambiyada haddaan tirinayo ama nebi maxamed waa duriyaddii nebi ismaaciil waa carab weeye salawaatullaahi wasalaamu calayhi isaga nebi ismaaciil waxaa udhexaysa la yidhahdaa 2500 oo sano halkan waa bilowgii kitaabkeennii alwaajibaat aanu ku bilaabanay ilaahay idankiis si fiican baana xaqiiqda gudaha looga fahmi doonaa wax badan oo dalaa'il wata min alkitaabi wasunna in sha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajeynaya ka baryaya subxaanahu watacaala sida ugu sawaabsan inuu ugu toosiyo inaan u caddeeyo waxaan sidoo kale ilaahay weydiisanayaa dhege badan oo daboolan ilaahay inuu ku furo iyo qalbi badan oo maaragtay daboolan xaqiiqda in aragtideeda laga qariyey ama shaytaan ka qariyey ama hawadu ka qarisay ama waaqican joogay baadilka uu ka qariyey ilaahay inuu u furo xaqiiqda u caddeeyo in sha allahu tacala halkaasaan kusoo koobaynaa bilowgeeni koowaad wajazaakum allahu khayra wallahu subxaanahu watacaala aclam